waxay soo bilaabatay marka Ilaahay uu adduunyada ku abuuray abuuna Aadam abul bashar. dawada ama daweynta dabiiciga ah waxay soo bilaabatay marka Ilaahay uu adduunyada ku abuuray abuuna Aadam abul bashar, aabihii bini'aadamka nabi Aadam calayhi salaam. laga soo bilaabo waqtigaas bini'aadamku baahidooda xagga dawada waxay u doonan jireen waxyaabaha dabiiciga ah oo ugu horeydo geedaha. waxay kale u doonan jireen waxyaabaha dabiiciga ah oo geedaha ka baxsan sida hawada, qorraxda iyo ciidda. laakiin waxaa asal u ahay in la garto aqoonta dhirta, ilhaam Ilaahay dadku uu ku ilhaaminayo markay xanuun ay la kulmaan cudurka markaas xanuunkaas geedka ku fiican oo lagu daweyn lahaa. markaan ka hadalno ummadaha caalamka soo maray ee aadka u isticmaalay daweynta dabiiciga ama gaar ahaan dawo dhireedka, waxaan ka xusi karnaa ummadda baabiliyiinta la yiraahdo, masaaridii hore, shiinihii hore, hindidii hore. ummadahaas oo dhan waxay aad u soo isticmaaleen daweynta dabiiciga ah gaar ahaan dawo dhireedka. Soomaalida sidoo kale waxay taariikh ku leedahay isticmaalka dawo dhireedka, inkastoo uu u badnaayo gobollada koonfureed, gaar ahaan gobollada gasha loo yaqaano ee webiga Shabeelle iyo Jubbo u maro. marka waa markii lagu abuuray bini'aadanka dhulka ilaa yawmina haada ayay soo socotay. casri walbana waxay lahayd aqoonteeda iyo ma aragtay teknolojiyadeeda ay lahayd. daweynta dabiiciga ah ama dawada dabiiciga ah xiriirka ay la leedahay diintu waa mid aad u qoto dheer. wuxuu ahaay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu yimid oo isagaa wax tashriiciyey oo maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala carabka nabi maxamed wax kusoo tashriiciyey. sharciguna wuxuu ka yimaadaa kitaabka iyo sunnada. wax ummadihii hore ee adduunka soo maray isku daweyn jireen ayay diinteennu sugtay, oo ay ka mid tahay isku daweynta dhirta, oo ay ka mid tahay toobinka. gaar ahaan si gaara ayuu toobinku nabigu sallallahu alayhi wasallam u sheegay inuu dawo yahay, wuxuuna noqday laga soo bilaabo waqtigaa oo nabigu uu sheegay dawada toobinka shay sunno ah oo diinta ka mid ah. marka xiriirka diinta iyo dawada dabiiciga ka dhexeeya wuxuu yahay wax badan oo daweynta dabiiciga ka mid ah ayaa diintu ayiday oo minadiin diinta ka mid noqday. waxyaabo badan oo dadku isku daweyn jireen oo aan asal u ahayn aqoon iyo ma aragtay tijaabo oo bini'aadamka dhib ku ana, diintu waxay ku tilmaamtay inaan waxba la isku daweyn, sida waxyaabaha maaragtay khuraafaadka ku dhisan oo malaha ku dhisan ama shayaadiinta dadka usoo waxyoodaha ku dhisan. waxyaabahaas diintu way fogeyday, laakiin dawada dabiiciga guud ahaan si weyn ayay xiriir ula leedahay. qur-aanka markaan eegno ama sunnaha waxaan arkaynaa inuu qur-aanku ka hadlayo geedo ama ma aragtay nabaataad tibiya oo qur-aanku uu xusay. maalan qur-aanku wuxuu xusay canab, qur-aanku wuxuu xusay rumaan, qur-aanku wuxuu xusay naqli oo timirta ah. sunnaha wuxuu xusay xabatu sawda, xabatu rashaad. geedaha nooca ah oo qur-aanka iyo sunnaha ku soo arooray waxay ku tusinayaan oo qaarkood qur-aanku ku tilmaamay ahlu jannaha inay cunto u yihiin, ahmiyad gaara inay leeyihiin, islaamkuna uu qiray oo u makaasubay. marka waa xiriir aad u dhow xiriirka maaragtay diinta islaamka iyo dawada dabiiciga ka dhexeeyo, wuxuuna ku dhisan yahay wixii bini'aadanka dan u ah inay diintu sugto, wixii bini'aadanka aan dan u ahayn diintu inay anfido diido. asal ahaan waxay ahayd dawada dabiiciga ah shay bini'aadanku ay kala dhaxlaan oo ma aragtay dadka isticmaala abka ab uu qofkii inta juhdi badan geliyo kadib uu sii baro dadkii isaga uu dhalay, oo sidaasay kusoo socon jirtay. laakiin waayahan dambe markii aqoonta caalamka ay soo furfurantay oo aqoontii caalamka la qoray, waxaa soo baxay macaahid iyo jaamacado iyo kulliyado lagu baranayo daweynta dabiiciga ah. مثلا هذا توبينka ah oo sheega diinta dabada la galo oo sunno ah waxaa lagu dhigaa jaamacadaha caalamka, gaar ahaan reer galbeedka iyo Mareykanka iyo Asia iyo Afrika iyo adduunka oo dhan. jaamacado badan oo kamid ah lagu dhigaa, gaar ahaan wadamada gaalada si gaar ah ay maanta u daraaseeyaan. marka hadda caalamkan aan joogno iyo sanooyinkii ugu dambeeyay la soo dhaafay waxay dawada dabiiciga heshay manaahij ku qotoma aqoon iyo barasho iyo kulliyad iyo jaamacad. laakiin asalkii hore waxay ahayd
haddana laga yaabo dadka qaar inay kusoo gaarto aqoon dhaxal ah oo abka ab dadka isku dhaxlaa. laakiin markaan soo koobo dawada dabiiciga maxay uga bedelantay dawada kiimikaalka ah farqiyo saddex ayaa u dhexeeya. farqiga koowaad dawada dabiiciga waa asal oo intaan kiimika imaan qarnigii 19aad kiimikada timid waxaa dadku asal u ahaay laga soo bilaabay uuna aadam markii ilaahay dhulka keenay ilaa hadda in dadku ay isticmaalaan dawada dabiiciga iyada asalkuna wuxuu ka tagay badan yahay mar walba shayga farac ah oo gadaal ka yimid. qodobka labaad oo dawada dabiiciga ay kaga tagay badan tan kiimikaalka waxay tahay dawada dabiiciga ma laha wax la yiraahdo side effect oo raad reeb xun ama laha. qofku markuu isticmaalo haddii cudurka ay ka daweyso qayb kale oo maaragtay raad reeb xun oo side effect ah oo acraad jaanibiya ma laha. qodobka saddexaad oo dawada dabiiciga ay uga tayo badan tahay dawada kale waxay tahay dawada dabiiciga ah kaliya cudurka ma daweynayso waxay tageynaysaa habdhiska difaaca jirka immune system ama aljihaaz almanaaci. habdhiska in la tayeeyo difaaca ayaa wax walbana ka fiican. marka habdhiska qofka difaaca jirka la tayeeyo waxaa u suurtagal qofkaas inuu iska caabiyo ama iskala dagaalamo cudurro badan oo